dantii ururaya meel kale kuma raagaye magacaygu waxa weeyaan Axmed Maxamed Abri oo ku magac dheer Shooli waxaan ka hadlayaa magaalada Boon oo magaalo istaraatiiji ah oo ugu dhex taala saddex wado dhex marto taas oo ah sida kale magaaladu aad u fiican way fiicantay waxa ay u dhaqaaleeyay kale oo ku caanahayd Sooliga iyo inkaas iyo waxa kale ku caanahayd caanaha bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku suganahay maanta magaalada Boon degmada Boon gobolka Salal degmada Boon waxay ka tirsan tahay gobolka Salal waana caasimada labaad ee gobolka Salal Boon waxa ay kulmisaa xadanay xidhiidhka u dhaxeeya xuduudaha Djibouti Ethiopia iyo Somaliland marka waa deegaan buuralaya waa magaalo imka soo kobcaysa oo leh kaabayaashii dhaqaalaha imka ay soo yeelanaysa sida xadanay iskuulaadkii sare jaamacadihii dhakhtaradii barefadkii iyo kuwii dawladii Boon marka waxa ay hadda ka soo kabanaysaa infrastructure-kii dhaqaalaha ee degmo marka Boon waxa ay hadda noqonaysaa insha Allah hadii Ilaahay raado sanadada soo socda in ay noqoto caasimad ama degmo buuxda ama caasimada labaad ee gobolka Salal Boon marka waxa ay ku talaabsanaysaa horumar ballaaran sida dhismaha degmada oo la jaan qaadaya heerka casriga ee maanta dunida maanta ku noolahay marka Boon waxa ay lahayd taariikh hore oo waxa ay soo martay marxaladooyin badan oo ku gadaabnaa Soomaalida una gaar ahaan deegaankeeda iyo gobolada galbeedka Somaliland marka Boon waxa ay ku suntan tahay taariikh aad iyo aad u facweyn oo ah hay tacaawiso ama saacid nafsak oo iska wax u qabta ah marka waxa asaasay iska wax u qabta ee Soomaalida kacaanka Ilaahay naxariistay Rooble Xoosh أو اسمه وابري إبراهيم بري مركز بان وحي فعل تايس كا وحو قبصو وحينا هذا كترتا تاي مقالوي كسو كوري سومالي لان مركز وحان كعصرنا قرب جوجتا رير بان iyo qolqol joogta bayna ay dhulkooda Soomaal gastaan oo ay si fiican u soo dhistaan halkan aan u jeegno waa Boon okay asxaab badan baa ka hadashay sida ay loo soo dhaweeyeen sida yacni ay ugu hadleen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay moogtahay yacni dhalinyarada fara badan si macaan bay u hadashay yacni Boon waxa ay ku caan tahay iyo waxa ay yacni istaraatiiji ay ku tahay iyo sida ay dhaqaaluhu u socdo waxaan Allahumma salli ala Muhammad kullay magacayga aad u dirci baa la yiraahdaa bariyahan media ka la jiray laakiin inta dambe waan iskaga baxay waan ka gaabsado xabawda way isbedeliyo socod uu soo waayo waan ka baxay maantana kullay waa dhalinyar doonaysa inaan yaro barnaamijka u duubo anu diyaar u ahay laakiin waxaan ku bilaabayaa bismillaahir rahmaanir rahiim runtii marka hore Ilaahay baa mahad leh nabadgelyada iyo caafimaadka insiiyay umada istilaysa haday Itoobiya tahay Soomaaliyeed iyo haday bari tahay ba Ilaahay kala qaboojiyo inamadu Boon bay iga weydiiyeen taariikhdii raggu waa wax wada dhinta berigii hore taariikh markuu leeyahay amba bulsho leedahay dhaxal baa ka halay taariikhdii horta Boon waxay raacday burburkii dagaaladii bay raacday dad kala soo degay dadkii waxaan taariikhda ka sheekeeyeen dhulka ma ahayn waa dadka hal iyo jeer siday u nool yihiin siday wax wada qabsadaan siday isku u baanaan siday dadnimada ugu jiraan siday diinta ku yihiin Boon waxay meel caalamka Soomaaliya oo dhan laga yaqaano waa meeshii laga aasaasay hays caawis markii ka caan ku dhashay iska wax u qabsan loogu bedelay iska wax u qabsan waa dekeligaas ka shaqeyso barkadaan qodanay dad wax qabsaday hay'ad dad dantu ka wada dhaxaysaan hal iyo jeer maamulada iyo dawladdu gacantooda kuma jirna bulshadu bas xukumi jirto odayadaan baa arrimahooda xalin jiro ka sheekayn jiray hay dagaaladii baa bilaabmay odayadii way dhinteen dad baa iskugu yimid kuwii hore u joogay kuwa dagaaladu soo qaxiyeen taariikhdii Boon ay lahayn jirtay ee nidaamka lahayd waxay raacday dadkii hore raacday dadkii dambana waa ku heshiidka isla dhacay dabka maalintii dhawaato waxna kama tagin odayadii waxaan leeyahay haday gudaha joogaana ma hayaan haday dhoofeen wax ma hayaan haday wax barteen wax ma hayaan hadayna wax bireen wax ma hayaan iyadoo halka taariikhdoodii aan ugu dambaysay taariikhdii Boon
muxuu كوي سجاشن دي بنوجد دميس الله سوعليان لنا لكن دليرت المجال ده وقويها كان تذكر وحبرنا إياه وحبرتي وحلو بهيه إنا يكشف كيان سدينا كاسوكلي وذيك المجال أساسه واسمه وبريمة الأولى تشري جرجدي ورسك التاجي نكي أساسي بوها هاي عوصة كريبوها نتاريخ كل أبوها ماشى ninkii ahaabuu yidhi ceel intuu qoday yidhi qasabadahan iyo see xoolaha qoryahan xoolaha lagu siiyo qabaallada la yidhaa barka xagga nin qoryacaraan uu naqaan intuu istabageliyo biyaha halkaa baan kaga soo shiidi yidhi buhaa yacni nin maskaxdiisu aad u horraysu aha maantana waxaa la yidhi taalla yaraan u samaynaa la yidhahdaayo taariikhda oo waaba la isku haystaaba iska daa innagu kii noolaa iska daa kii aakhiro tegey baan xaasidaynaa magac laha يعني وابعشويك الله يا بين دولك كتاجن وحوي قبيلة وحلينا برجور واحد يقول شر قف مركون بلادكم يا جالسكم مرخاتي آخر إلى هرتي إلى يسوي قف والبكوب حتى لا يجوا مرخاتي وقف صاير بالكور نقفك دائما كنا آخر إلى توتجو بلا غير كودم بدي أمان دونا قفكم بناء جيسة تذكر وحبرتي يدا اللي يرتا yaan qoysoolno hal noqonini hal noqdo danta guud laga wada shaqeeyo wixii taariikh la iyo waxay qabtay wax la mid ah la qabto ay imika way dadaaleen jaamacad baa la keenay alxamdulillah way fiican tahay waxbarashaduna way fiican tahay biyuhu meel ka soo ka dhaceen oo nin aad u fiican baa biyaha maamula oo magaalada ku baahiyay oo xitaa miyiga la geeyo magaalada dameeri soo galay koonayaashii ka dhaansadaan tangiya la sameeyay dhakhtar baa la aasaasay dhakhtarkii qudhiisa weli rasmi maaha qoladii dhakhtarka ballan qaadana sideeda ha u dhamayso waxay doontana ha ku qorto cid ali cid ay jaqan tahay ha ku qorto dhulku dhakhtarkuun maaha iskoolaa jira jaamacadaa jira waxaa jira madrasadaa jirta garoonnaa jira bulshadu way badantay nin walba halkii doona ha lagu qoro laakiin wixii aad qabateenna fuliya ballan qaadeen ciddii aad ugu ballan qaadeenna ku sawira dhulku intaa un maahayni layo dariiqyadaba dadka waa lagu sheegaa iskooladaa lagu sheegaa dhakhtarro kalaa jirta garoonno ciyaaradeed baa jirta waxaa kale waa lagu sheegi doonaa laakiin shikiga ka daayo wixii aad qabateen iyo cid aad u baqaatay hala fuliyo intaasaa ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah calayki saas ninkii isugu soo warmay aad iyo aad buu mahadsan yahay dhammaan yacni taariikhaha iyo goobaha ay ku leedahay boon waa meel aad iyo aad istiraatiiji oo sidaas daraaddeed aad buu mahadsan yahay sheekhay waad arkayseen iyo ninkii kale hadlay aad baad mahadsantiin dhammaantiin bismillahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed haddii aan idinka warramo taariikhda boon waxay iskaa wax u qabsan iyay caam ku ahayd adduunka una nala lahayn ooy boon caam ku ahayd oo meel alla meeshii ay dhibaato ka jirto iyo hawli ay ka jirto iyo biyaha iskaa wax u qabsan rag iyo dumarba waan dareeri jiray iskaa wax u qabsan caam u lahayd haddaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxmaan raxiim marka hore saxafi ku soo dhawow degmada boon waxay ku caan tahay taariikhda looga yaqaan adduunka iskaa wax u qabsada iyo solayga iskaa wax u qabsada oo ay ku qabsatay degmada boon waa caafimaadka waa waxbarashada iyo goobaha biyaha iskaa wax u qabsadu waa soo jireen oo asaasay allah u naxariistee mu'asaasihii weynaa ee degmada boon oo Cusmaan Waaberi waana mashaariicda kaliya nooga yaqaano Somaliland ama guud ahaan adduunka oo dhan marka iskaa wax u qabsadu waa mashaariic soo socotay qarni taas oo lagu abuuray iskuulada dhakhtarada iyo goobaha caafimaadka solayga isna jira solaygaasna waa shay aad u macaan oo laga cuno degmada boon laguna yaqaano degmada kana maanta ka taalina waa taariikhii boon ay lahayd iyo sidii boon loo deganaan jiray iyo waxyaabihii boon ay ku caanahayd had iyo jeer ay yacni ku caanahayd lagu yaqaanay astaamihii lagu yaqaanay boon hadaba waxaa la sheegay in ay ahayd taariikh goob taariikh ah oo rag aasaasan rag aad iyo aad u qaali ah aasaasan baa jiray marka sidaa daraadeed rag aan wareysan doona insha Allah bismillaahi raxmaani raxiim أنا مقعد واحد على رأس سليمان محمد بوح كنا والدقمة بون قال بون وحي عام كنت هايس كوحو قفصو إن وحا كسو شغيي وقت بدن وضياشي نية ياسو قرسيالكا ما إن شاء الله تعالى وحي سعطان ميل في عن
mashaariicihii biyihii laydhkii wax waliba way haysaa insha allahu tacaala waxaan maxay ahayday dowladda cusub ee iminka dhalatay aan ka rajaynaynaa intaa iyo meel kasii sarraysa inay gaadho boonna waxaan leeyahay inay midowdo insha allahu tacaala ayna wax wada qabsato sidaa iyo waxaan ku ogahay magaalada khayr badan waxaan ku sugannahay magaaladii Boon waa magaaladii ugu horeysay ee Soomaaliland iska wax u qabso laga helo ee goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada iyo goobaha biyaha laga dhisto yahay magaaladani waa magaalo taariikhiya Boonna waxa loogu bixiyay magaalada waxa ku aasan oday la yiraahdo Boon Jiliba oday la yiraahdo ku aasan markaas magaaladani waxa ku caan tahay solayga sidaas xasiida waxa ay dhanna garowgu maanta noo baxay dhulku waa iyo caleenta way baxeen dhulku waa barwaaqo raxiim marka koobaad ka soo dhawaad degmada Boon